hal dembi afar ciqaab. haddii aad awood leedahay waa badbaadaysaa. sharci laga keenay qarnigii 12aad lagu dhaqangelinayo qarniga 21aad. cadaalad mise kala sarreyn. bal qiyaas maxkamad, laakiin ka hor intaan lagu xukumin waxaa la eegayaa qofka aad tahay. sharciyadan waxay bulshada u kala saaraan 4 heer. culimada diinta waano dadka awoodda leh maxkamad iyo canaan. qofka caadiga ah xabsi. dabaqada hoose xabsi iyo garaacid. dembigu waa isku mid laakiin ciqaabtu ma sinna. sharciyadan waxaa laga soo guuriyay qoraallo fiqi ah oo la qoray qarnigii 12aad, laakiin maanta waa qarnigii 21aad. dunida maanta waxay ku dhisan tahay mabda ah in qof walba uu la siman yahay kan kale marka maxkamad la joogo. haddaba ma nidaam diin ku salaysan baa daawade mise waa kala sarreyn sharciyaysan? adiga maxaad u aragtaa? ka waran haddii hal dembi uu yeesho ciqaab kala duwan iyadoo lagu salaynayo qofka aad tahay. qaar waa la waarinayaa, qaar waa la maxkamadaynayaa, qaar waa la xidhayaa, laakiin kuwa kale xabsi iyo ciqaab labadaba. sharci laga soo guuriyey qarnigii 12aad maanta lagu dhaqangelinayo qarnigii 21aad. cadaalad mise kala sarreyn. dunida maanta sharciyada badankood waxay ku dhisan yihiin mabda ah in dadka oo dhan ay siman yihiin marka maxkamad la joogo. laakiin maxaa dhacaya marka nidaam sharci uu bulshada u kala saaro dabaqado kala duwan? waxaa jira sharci dood weyn dhaliyay oo bulshada u kala saaraya 4 heer. heerka koowaad, culimada diinta haddii ay qalad galaan waano. heerka labaad, dadka xulka ah ama awoodda leh ciqaab, maxkamad iyo canaan. heerka saddexaad, dadka caadiga ah ciqaab, xabsi. heerka afaraad, dabaqada hoose ciqaab, xabsi iyo garaacid. daawade, su-aashu waa ma cadaaladba in dembi isku mid ah uu yeesho ciqaab kala duwan? sharciyadan waxaa laga soo wariyay kutub fiqi ah oo la qoray qarnigii 12aad, laakiin maanta waa qarnigii 21aad. dunidu way isbedeshay, xuquuqda aadanaha waa la qeexay, sinaantu waa mabda caalami ah. daawade, haddaba ma sharci diin ku salaysan baa mise waa nidaam kala sarreyn sharciyaysan? daawade, fikirkaagu muxuu yahay? haddii aad rabto falanqeyn qoto dheer iyo sheekooyin aan si fudud loo taaban, ku dhufo subscribe hadda. muuqaalka xiguu ka sii yaab badan yahay kan.